subax wanaagsan waa shaaha iyo sheeko maanta waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo barnaamij aan uga hadlayo shakhsigu marka uu yahay wadani waxa uu rabana daacad u yahay kana run sheegayo iskuna kalsoon yahay helana aragtida uu xambaarsan yahay dad la fahma oo la qaada waxaa hubaala inuu ka guulgaari doono himiladiisa taas waxaan sidaa u leeyahay waxaan rabaa halkan inaan dhacdo taariikhi ku xuso waxaan maanta la soconaa waddanka Russia la yiraahdo inuu Putin madaxweyne ka yahay waxaan ogsoonahay muddo ku dhow hadda 25 sano inuu xukunka hayo laakiin maxaa u keenay inuu qabto xukunkan maxaa ku qasbay dadka taariikhdiisa daba gala waxa ay leeyihiin dhacdo cajaa'iba oo soo martay noloshiisa ayaa ku qasabtay Putin wuxuu ahaa sargaal loo tababaray sirdoonka waddanka midowga Soviyeeti la oran jiray KGB shaqadii ugu horeysay oo dibad ugu soo baxo waxa uu ka qabtay waddankan Jarmalka bari la yiraahdo la oran jiray xarun ay ku lahaayeen KGB magaalo Dresden la yiraahdo oo Jarmalka bari ah asaga iyo qoyskiisu halkaas ku noolaayeen iyo rag badan oo isla ay ka tirsanaayeen sirdoonka waxa dhacday hadaba 1989kii bishii December 5 markii la jabiyay darbigii Berlin in dad qamaamaya ay mudaharaadaya ay jabsadeen albaabadii xaruntii sirdoonka waddanka Jarmalka bari ay ku lahaayeen magaalada Dresden la yiraahdo magaalada Dresden xarunta sirdoonka Jarmalka wadada dhinaceeda kale waxa ku taalay xafiiskii KGB ama xaruntii KGB ay ku lahaayeen midba dhinac bay uga taalay dadkii markay ay u dhaceen xaruntoodii nabad sugidda ay waxay u gudbeen tii KGB waardiyihii iridda taagna markuu arkay dadka ku soo qamaamaya galayna xaruntii kalena galay buu gudaha ugu cararay xaruntii KGB wuxuuna wargashay raggii ku sugnaa goobta in dad mudaharaadaya u soo socdaan marka arrintaasi dhacayso Putin wuxuu ku jiraa xaruntaas waxa la yiraahdaa wuxuu qabsaday telephone magaalada Dresden la yiraahdo waxa agteeda ku taalay xarun ciidan Russian ay fadhiyaan oo taangiyo wata wuxuu wacay xaruntii marka ciidankii taangiyada uu wacay si loogu soo gudmado oo looga soo gaaro inta aysan dadkani xaruntooda cagta marin ciidankii joogay goobta u dhow oo taangiyadu waxay ku wargasheen Putin in aysan amar u haysan inay ka baxaan xerada wax walbana ay ku xiran tahay Moscow markii la wacayna aysan wax hadala oran ay ka aamusay jawaabta marka loo soo cesho waxa ahaa Moscow way aamustay dhacdadan meesha ka socoto hadaladii loo gudbiyo fariimihii Moscow ku dhacay oo dhan kullu way ka aamuseen Vladimir Putin wuxuu qaadan waayay hadaba in dawlad dhan oo awood leh buu ogaa oo midowga Soviyeeti la yiraahdo in maanta ay difaacan weydo shaqaalaheedii weliba
ciidankii taangiyadu ay agtooda joogaan, amar walboo ku dhacana ay dhagaha ka furaysanayaan. waxaa la yidhi waxaa ku noqotay dhegihiisa wax uusan qaadan karin ama qalbigiisa in la yidhaahdo Moscow way aamusantahay mogta. waxa uu sameeyey haddaba, dadkiibuu bannaanka ugu soo baxay. markay xaruntiisa soo gaareen wuxuu ku yidhi waxaan idinku wargelinayaa xaruntan aad u socoto waa goob ciidan hubaysan baa ku jira. haddaad soo dhaaftaan meeshaa taagantiina amar waxay u haystaan inay isdifaacaan, xabadana furaan. marka idinkoo badbaadinaya naftiinna halkaa ma soo dhaafi kadhaan mogta. dadkii mudaharaadayay sidii bay yeeleen, goobtiina ma aysan soo dhaafin. Vladimir Putin wuxuu qaadan waayay haddaba madaxiisana ka weynaatay dowlad dhan oo caalamka dowladaha ugu sarreeya midda labaad ka ahayd xilligaa, in aysan awood u lahayn inay dadkeedii badbaadiso. waxaa dhacday isla waagiiba in waddankii la kala guuro, ciidamadii ama KGB-da ay dib ugu laabtaan waddankoodii. Vladimir Putin wuxuu ku laabtay waddankiisii isagoo ciil qaba. mar walbana wuxuu xasuusaa baa la yidhi Moscow hadal lagama hayo, Moscow waa aamusanta. taas ayaa waxay ku noqotay in uu u istaago Moscow aan mar dambe aamusayn, hadlaysa, u doodaysa dadkeeda, xaqeedana ceshanaysa, meesheediina uu ku soo cesho. dareenkaasaa galay, dareenkaasi uu istaagay. markuu waddankiisa ku laabtay, markii hore wuxuu ku fakeray inuu tagsiila noqdo, iskaga baxo shaqadii. mar labaad ayuu wuxuu istusaa la yidhahdaa sidee baad marka uga tegi kartaa adigoonan ka run sheegin wixii aad aaminsanayd oo ah soo celinta waddankii Russia. wuxuu sameeyey baa la yidhi isla markiiba wuxuu shaqo ka helay jaamacadda ku tagal magaalada Leningrad la oran jiray. asagoo shaqadaa wada ayuu isla sanadkii ku xogay 1991kii waxa uu la taliya u noqday duqa magaalada. magaalooyinkaasoo Leningrad ama Saint Petersburg baa la yidhaahdaa, oo ah magaalooyinka ugu waaweyn waddanka Ruushka ama xudunta u ah. waxa uu sameeyey haddaba duqaas magaalada ayaa wuxuu ka dhigtay la taliye. sanadkii ku xogayna wuxuu noqday ku-xigeenka duqa magaalada. intuu la taliyaha u ahaaba haddaba barnaamijyo badan ka caawiyey duqan oo la xiriira amniga, securityka, ganacsiga. markuu noqday ku-xigeenka duqa magaalada ayaa waxa u sahashay inuu xiriir la sameeyo dowladdii dhexe oo Moscow fadhiday. 1996 doorashadii maayarkii shaqada siyaasadda uu ku guuldaraysay. magaaladiina wuxuu uga soo wareegay Moscow, u soo wareegay. wuxuu shaqo ka helay madaxtooyada oo ah inuu hanti dhowro ka noqdo guryaha ay dowladdu leedahay. asagoo hanti dhowro ah ayaa waxaa loo qaatay ku-xigeen inuu ka noqdo agaasimaha madaxtooyada mogta. ku-xigeenkii agaasimaha madaxtooyada asagoo ahba waxaa loo doortay haddana inuu noqdo madaxa KGB-da. taa waxaa ku weheliyey haddaba in 1999kii uu madaxweynihii Yeltsin uu aaminay una magacaabay ra'iisul wasaare. isla December 1999kiina uu shaqadii ka degtay, uu xilkii ka degtay madaxweynuhu, uuna noqday madaxweyne ku meel gaara. 6 bilood kadibna doorashadii la qabtay 2000 uu noqday madaxweyne. ilaa maantana uu yahay, mar uu ra'iisul wasaare u wareegay maahane.
haddaba xanuunkii ay ku reebtay magaalada jarmalka dhawaaqa ka soo yeeray oo mooska ma hadli karto buu wuxuu u istaagay maalinta waxay ka dambeysay mooska hadlaysa inuu keeno 25 sano wuxuu soo istaajiyay adduunka mooska oo la filayo inay kusoo laabatay booskeedii la yaqaanay ninkaasi wuxuu halgan u galay in uu hor istaago damacyo badan oo waddanka lagu burburinayo midowga sovieti 1990 wuxuu gaaray xabadda shaaha koobka shaaha qofka u shubtid baad wax walba ka qaadanayso waddanka hantidiisa oo dhan baa la boobay niman oligarch la yiraahdaa soo baxay oo kamariyadii saliidda la wareegay xarumihii dowladda la wareegay shirkadihii reer galbeedka oo dhan baa galay aqoon-yahankii oo dhan baa la kala gatay qaar la laayo qaar waddanku wuxuu salka si fiican buu salka u dhigtay marna lama filayn haddaba waxyaabaha cajaa'ibka oo soo maray waxaa ka mid ahayd oo asaga iyo reer galbeedkuna ay aad ugu maraykanku weliba ay aad ugu kala fogaadeen weliba ninkii John Biden la oran jiray xilligii Obama madaxweynaha Joe Biden uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka oo kana uu ra'iisul wasaaraha ahaa doorashadiina ay soo socoto baa Joe Biden loo diray boqortooy Joe Biden baa loo diray wuxuu u tagay madaxweynihii wuxuuna u sheegay fariintu wadayna waxay ahayd inuusan isi sharaxi karin mar dambe moogto waxaa la yiraahdaa Joe Biden markuu intaa yiri ra'iisul wasaarihii uu ku leeyahay fariintaasaan ku wadaa inaadan doorashada soo socota aadan u laaban madaxweyne oo aad isi sharaxi karin ma intaasaa u timid buu yiraahdaa wuxuu yiri istaag albaabkaygana ka bax moogto odaygo Biden oo fadhiyo meeshii ka kiciyay wuxuuna yiri macal iska daa inaad dayarada halkan ka qaadatid airportka ha ku qaado moogto sidii bay noqotay sidii buu ku cayrshay marka Biden marka la yiraahday asaga dagaal toos oo shakhsiyan ah ka dhaxeeyay maalinta fariinta uu keenayna salka ku haysay moogto marka waxaan ka soo aan u soo laabta haddaba qisada waxaan u xusayaa waxa weeye marka shakhsigu ay dhab ka tahay inuu u adeego waddankiisa ay dhab ka tahay inuu badbaadsho uu yaqaan cadowgiisa yaa cadow u ah uu yaqaan uu helo rag ama dad la aragti ah wuxuu awood u leeyahay inay aragtidaasi hirgasho uu xambaarsan yahay muddada ugu badan oo ay qaadan kartana waa 25 sano asaga aan tusaalaha uga soo qaadanayn annaga Soomaaliya 34 sano la maraya 5 sano iska dheh 35 sano intaasoo siyaasi baa waxay sheegtay inay awood u leedahay inay wax hogaamiyaan taariikhday dhigeen ama meesha waddanka dhigeenna waan ogna mid walba waxa uusan ka gudbi karin oo dabar lugaha uga xirana qabyaaladda midna ma dareensana reerka uu sheeganaya maahan dadka kale inuu mas'uul ka yahay waxa uu arkaa madaxweynaha dad maanta noqotid ama ra'iisul wasaare ama xildhibaan ama mid maamul goboleed ama ma aragtay degmo yar lagu dhiibo ama macallin laga dhigo Soomad arag in qabiilkaaga looga dhigo waxaas inta kalena ay shuqul ku lahayn waliba adoo og inay ku doorteen dadkan aad madaxda u tahay Soomaaliyeed oo dhan boqto marka waxa cad inaysan jirin dad aragti noocaas taabutun uu waddanka dhan ummad dhan oo intaas tira la eg uu ku badbaashay nin kaliya oo xambaari kara inuu soo bixin Soomaalida hadduu soo baxayna maba jiraba dee oo laba hayo waayo waxaan aragnaa kulli waxa ka lusha dacallada waa
waa ama inuu u socdo weji qabyaaladeed reer uu tirsanayo uusan u jeedin aragti guud uusan u jeedin waxa yaa cadow waa kow cadowgiisu xaggee jira albaabka ku dhegan buu u yaqaanaa soomaaliga la degan inuu cadow yahay soomaad arag aragtidu xambaarahaya waxa ugu weyn waxa weeye inuu reer hebel baa kursi ku fariistay oo inuu muujiyo uu rabo mogta soomaad arag marka waxaan usoo qaadanayaa barnaamijkan Vladimir Putin aan usoo qaadanayaa in cashar laga barto dadka waxgaradka Soomaalida ay isku dayaan inay ka gudbaan xayndaabyadan ay ku jiraan una soo baxaan banaanka mas'uuliyadda weyn oo Soomaalinimada ay qaadaan ayagoo dareensan dhul iyo dadba inay qasab ku tahay inay raadiyaan xuquuqdooda meeshay ay taalana ka qaadaan mogto markuu qofku sidaas ula soo banbaxo wuxuu helayaa dad aragtida uu sida la xambaara mogto laakiin nin aaminsan kursiga reerkayga ay saaray ama doorkeennii baan ku helnay ma xambaari karo aragtidan mogto marka bal inaan intaa isgaarsiino maanta shaaya sheeko qaybtiisii lixaadna halka kusoo xiraan raba waqti dambe maca salaam